Soomaalidu meesha ay adduunka tagaanba waxa weeyaan adduunka way qaali kareeyaan maxaa baray darawalkan dollar Soomaali baa bartay ha isku soo jeedinina dadka dhalinyaro fara badan oo idinka mustaqbal adduunyo idinku soo maqan diintoodu khatar bay ku jirtaa gabar ka soo Soomaaliya waan jeclahay walaalayaalow adeerayaalow awowyaalow labiskiina si wanaagsan u hagaajiya oo is astura caada aan ku arkay way Turkiga walaalayaalow jirkiina astura maxaa guriyahana looga ijaari waayay qofaa guri ku jira markaasuu maxaa la yiraahdaa laga yaabo inuu iska batahriibaba waaba dhaqaaqayba qashinkii baa guriga ka buuxa waa ku uraya nin oday baa intuu balakoonka istaago saacada Soomaaliya la hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ولا ليال ولا لها الصوماليات تركيا جارهان كنول جارهان دنيا ماله هذا كله دوان كنول وحندونا يا إلى رسالة إذن لو ذا جمان تأدي آدمه مؤا لكن وحيكون صعطة رسالة دني ودن كان تركيا ضدك كنول إردالي يرضى يفهمي ذا أبدا دور قضب عندنا يا إن نسكوان إنه دور قضب عندنا يا إن بالشدة إن كوعي جلينه إذا قبضة مركب كوباد قف قربته جاي ودن كيسي ودن أنا هي مدمجيرو إلا دباتوين بدن أيو كلا كل ما هذي دباتة نقطة دباتة حق اللغة إيه هذي نقطة حق دقنك إيه هذي نقطة حق نولش أنت بدباتو كلا كل ما سيدا دراد ولا ليال دمانتين ارتودن قربة أبا جوكتان وودن كوا مسلم لكن وغربة قربها نديب كيسولة هي وإناد كتلا جشان أو تكو حساب تنتان قضبك كرادات كاني عاداتك يدقمدا وان كو كلا دوانهي حتى بهاراتك عنتدا لغو دارو ayaan ku kala duwanahay nin oday ama maal dhawad guriga igu soo garaacay oo saa iga soo horjeeda wuxuu yiri waxa weeye bahasha la yiraahdo luubaanta ayaanu shidanay luubaanta markaasuu yiri bahal aan la joogi weynay kari weynay ayaa shidateen buu yiri waa luubaanta inagu aan ku raaxaysanayno iyo unsiga ay Soomaalidu ay jeceshahay arag sida loo kala duwan yahay waa tusaale way bahaaraadka cuntada lagu darsanayo ayaa xataa noo kala duwan cuntadeena sibay u uriyaan ama u carfiyaan annagana cuntadooda sibaanu u carfina waxaan u baahanay inaan aad u ilaalino walaalayaalow dhalinyarada khaasatan magaalo joognimo xumadu waa qaab ama waa tusaale ama waa calaamo ku tusinaya reerbaadiinimada sidoo meel hadaa tagto wadanka waa wadan nidaamsan waa wadan dadkoodu hadalkoodu kooban yahay waa dad aan qaylo badan lahayn waa dad aan meelo istaagtaag fara badan aan lahayn waxa weeye annaga istaageenu aad buu u fara badan yahay socodkeenu aad buu u fara badan yahay xawaaladihii baan saa isu duban u dul tubanahay oo hadda xawaaladaheena hadina laga xidhaa dhowto annaga ayaa dambiga iska leh waa la sheekaysa dadka xawaaladaha mas'uulka ka ah waxay dadka waxaan sameeyna male qof walba laba saddex baa la socota hatta hadduu qof soo galo kii soo qaatay ma tagayay banaanku ku sugayaa arintaasi magaaladana dhib bay ku wadankana dhib bay ku tahay Soomaalidana dhib bay ku tahay xawaaladihii lacagaha aan ka qadan dhib bay ku tahay dukaamihii aan ka adeeganayeen dhib bay ku tahay meelihii wax laga cabayay dhib bay ku noqonaysaa hadda maqaaxiya waa artay inaga Soomaalida horteesa u hortumanahay qofka inuu qadeeyo oo baxo dantiisa raacdo waa la gartay inuu maqaaxidii gudaheedii fadhiisto intay furantayna waa la gartay laakiin intaas oo meeloodoo la iska tutuban yahay walaalayaal wax wanaagsan ma aha sida aanu u soconno iyo qaababkan u soconno iyo waqtigan soconno iyo qaylada badan iyo buuqa badan walaalayaal waxaasoo dhan in la iska ilaaliyo waa wax muhiim ah weeyaan dhalinyarada si khaas ah waxaan ugu dardaarmayaa waalidiintii caruurtan soo dirsatay ee Soomaaliya ka soo dirsatay ogaada gabdhaha soo dirsateen iyo wiilasha soo dirsateen wadankani dhalinyaradu salaada ma ilaaliyaan mar haddaan wadanka salaada ayna dhalinyaradu ilaalinin dhalinyaro fara badan oo idinka mustaqbal adduunyo idinku soo maqan diintoodu khatar bay ku jirtaa oo salaadoodu khatar bay ku jirtaa qof walba ilmahaaga la soo hadal wiilkaaga dhalinyarada aha iyo gabadha soo dirsatay la soo hadal salaadana kala hadal ayagana waxa la war salaada ilaaliya oo diintiina ilaashada waxaan doonayaa inaan xagga nadaafada aan si gooni ah Soomaalida ogala hadlo maxaa guryahana looga ijaari waayay waxa la yiri guryaha Soomaalida waxa looga ijaari waayay 4 qodob ama 5 qodob
horta waxaa la weeyay nadaafad xun tihiin baa la yidhi qofaa guri ku jira markaasuu maxaa la yidhahdaa laga yaaba inuu iskaba tahriibaba waaba dhaqaaqayba qashinkii baa guriga ka buuxa waa ku urayaa horta aan nadaafadda aad ugu dadaallo oo guryaha nadaafadooda aan aad ugu dadaallo waa qodobka koobaad qodobka labaad oo lagu diido waa dad badan tihiin baa la yidhi oo waad marti badan tihiin oo waad buuq badan tihiin nin oday baa intuu balakoonka istaaguu saacadda Soomaaliya la hadlayaa oo uu qaylayaa walaalayaalow xagga nadaafadda iyo xagga nidaamkana aan ku dadaallo si khaasa waxaan oola hadlayaa gabdhahayga aan jeclahay ee Soomaaliyeed labadayda indhood baan wax badan ku arkay hooyo kaligeed oo taxi saaran oo darawalka hor fadhida waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaalow waddankan aan joogno bal waxaad fiirisaan gabar kaligeed oo darawal ag fadhida bal fiiriya dhaqankooda ma aha waddamadii aan soo joogi jiro Masar iyana oo Carabahana waa saas oo kale Soomaalidu hooyo gabar kaligeed oo dhalinyaro ah ama hooyo kaligeed oo qof weyna yaa waxaad arkaysaa inay saaran tahay gaarigii bay hore u fuuraysaa walaalayaal dhaqanka ilaaliya khalad bay naga fahmayaan ninka darawalka uu isweydiinaya wuxuu leeyahay okay qofka waa qof dumar gadaal may fadhiisato inay gabdhahoodii buu yaqaanaa oo gadaal fadhiisanaysa mid way dhici kartaa walaalayaal arrinta dhaqanka ilaaliya oo gadaal fadhiista biidnillaahi tabaaraka wa tacaala lacagta marka laga hadlayo intaas oo darawal baanu aragnay oo yiri dollar noo dhiib maxaa baray darawalkan dollar Soomaali baa bartay ha isku soo jeedinina dadka waxaa kala ogaataan oo ayadana aad u baraarujinaya oo la ogaaday oo tajruba ah oo cid ka murmi doonta ayna jirin Soomaalidu meesha ay adduunka ka tagaanba waxa weeyaan adduunka way qaali kareeyaan guryihii bay qaali ka dhigaan oo maciishadii bay meelo badan qaali ay ka dhigaan tani hadda way ku socotaa xataa guryaha way isku falisaan waxa laga yaabaa inuu qofkan dhaho guriga waa inta mid kale u yimaado yiraahdo ana inta ka siinaya sida daraadeed waxa weeyaan guryahan yeena la isku waddanka system buu leeyahay guryahooda in baa lagu kireeyaa waxa weeyaan ijaarku in buu leeyahay marka haddii anagu aan meel walba aan kicinno soo iskuma soo jeedinayno bulshadii baa marka dambana nacaysa turkadii baa marka dambana nacaysa halkan waxaan doonayaa inaan si khaasana turkida aan oga mahad celiyo soo dhaweynta sharafta badan iyo minaxa waxbarasho ay dhalinyaradeenna ay u fureen iyo iqaamadaha inkasta oo ay iqaamadaha hadda waayahan aad u adkeeyeen oo arinta ay safaaradda iyo jaaliyadda hadda ay u socdaan sidii loo xalin lahaa haddii alla yiraahdo haddana si guud waan oga mahad celinayaa soo dhaweynta guud iyo dulqaadka ay noo sameynayaan ama ay noo muujinayaan turkida biidnillaahi azza wajal hadduu dhaqankeenu wanaagsanaado hadduu isku xidhkeenu wanaagsanaado hadday sharafteena iyo noolaanshaha waddankan aanu qurxinno waan kala sii dhowaanaynaa jaaliyadda loogu jecel yahay ayaanu noqon doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala marka guryaha ayaan la isku qaaliyaynin doolarka meelaha lala ordayana ha la joojiyo hooyo Soomaaliyeed baan arkay oo dukaan ka adeeganaysa oo intay jeebkeeda gacanta gelisay tiri ma haya teelle ee doolarka ma ku adeeganaysaa halka way meesha yaani dhibku ka imaan doono waagaanu Masar joognay waxay dhaheen masaaridu maanta haddii ay dhibaato dhici lahayd waan jeclaan lahayn waayo Soomaalida guryaheeda intaan u daadanno ayaanu doolar ka soo daldalan lahayn haddii lagu ogaado marka inaad tahay qof doolar socda ah way dhib yarta in lagu la coloobo oo ay bulshaduna kula colowdo hadhowtana dadka la dhacaya aad noqoto guryahana markii laga ijaarayo takaasidana lagu yiraahdo doolar noo dhiib arrimahaas oo dhan aan ilaalino mar labaad oo ku celinayaa sharafta diinteenna iyo sharafta Soomaalinimadeena intaba aan ilaalino meel walba adduunka aan ka joognaba gabdhaha Soomaaliyeed si gooni yar-yarka ah labiskiina waa idin jeclahay gabdhahaygii baa tihiin xaaskaygaad la mid tihiin eedooyinkay baad la mid tihiin gabar kasoo Soomaaliya waan jeclahay walaalayaalow adeerayaalow awowyaalow labiskiina si wanaagsan u hagaajiya oo is astura oo xijaabkii ku soo noqda oo meesha aad ragga lugahooda meeshay geeyaan loogu talagalay sunnada ay raggu geeyaan oo dhan bay maryihii idiin marayaan raggina sarwaaladii dhulkay wada jiidayaan walaalayaalow kor u qaada gabadh walba kubkeeda inay bannaanka soo dhigto waa arrin aan hadda ku arkay caado aan ku arkay weeye Turkiga walaalayaalow jirkiina astura oo sharaftiina Soomaalinimo ilaaliya oo xaggiina yaan looga soo dhicin xagga diinta iyo sharafta Soomaaliyeed yaan xaggiina looga soo dhicin haddaad gabdho yar tihiin waan ogahay inay arrin culus idin haysato oo aad waddan qurba ah joogtaan 17 jir la soo diray baan alla kulmay markaas la sheekaystay oo qaraacmay waxa weeyaan arrinta ku dadaalay insha Allah
aan kulligeen wada ilaashanno safaaradda Soomaaliya xil gooni ah baa ka saaran abaabulka bulshadan maxaa la yidhahdaa jaaliyadda ay dhistay waxaa ka saaran abaabul gooni ah dadka culummada ah waxaa ka saaran tawciyo iyo abaabul gooni ah dadka ugaasyada ah iyo garaadyada ah waxaa ka saaran abaabul gooni ah dadka noocaasa inta isku tagaana waxgaradka ah insha Allah aan dhalinyaradeenna aan abaabulanno oo ceebaheenna aan asturanno oo aan magaalo joognimo xumada aanu iska ilaalinno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala aad baan idiin jeclahay reer Ankara reer Turkiya iyo dadka qurbaha jooga oo dhan waxaan doonayaa inaan sawir fiican ka baxsanno diinteenna iyo sharafteenna iyo Soomaalinimadeenna intaba wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh